السلام عليكم أحبابي ميل بأجوكتان وايد سلامي وعليه قالق أحمد بأجوكتان بإذن الله الكريم هدور برالك النقضة وحنا كهضليا عابقة كدعة ركع الدمرك حلقة هايدا أقول كل هذا عابقة كلامي ديها أنت نقول كلام مقال كينا فضلا مقالك لاج إنه صار هديه كعصة الجنر كيجنا سبسكرايب صار مقالكنا سيشير كره هديه نقول قلنا موضوعنا ما أنت haweenka qaarkooda waxa ku dhaca caabuq dhaabici kara ilmo-galeenkooda ama sidoo kale waxa ay noqon karaan dumarka haddii aan laga daaweynin caabuqani kalaamidiyaha loo yaqaano waxay noqon karaan madalays salbangitis waa caabuq ku dhaca tuubooyinka ogxansidayaasha haweenka uurka leh ee qabaan caabuqani waxay gudbin karaan ilmahooda uurka ku jira haday sidaan uur sidoo kale dhibaatooyinka ay kala kulmaan ragga qaba cudurkan loo yaqaano kalaamidiyaha dhibaatooyinka ay la kulmaan raggu sidoo kale waxay la kulmi karaan dhibaatooyin caabuqan aan laga daaweynin dhibaatada ragga qabsata xilliga ay ku jiraan marxaladda ugu horeysa ee caabuqani waxa kamid ah tuubooyinka celiya ama kor u haya xaniinyaha ayaa ku imaan kara barar taasoo keenta xanuun zaid ah caabuqani wuxuu ku fidi karaa qanjirka wuxuuna keeni karaa xanuun raaxo dara ah xilliga lagu guda jiro galmada haddaba xilliga hooyadu ay sido uurka dhibaatooyinka ay kala kulanto cudurkan lagu kala qaado galmada waxay u gudbin karaan uurka ama uurku jirta ama ilmahooda uurka ay ku sidaan marka laga hadlayo kalaamidiyaha waxay u keeni kartaa caabuq indhaha iyo oofmareen ah ilmaha uurka ku jira haduu saameeyo cudurkan loo yaqaano kalaamidiyaha waa muhiim in dhammaan haweenka uurka leh laga baaro cudurkan loo yaqaano kalaamidi inta ay ku guda jiraan 3 bilood ay leeyihiin uurka waxaa laga yaabaa in aad qabto haddana aadan ogeyn cudurkan loo yaqaano caabuqa kalaamidiyaha sidee loo daaweyn karaa xilliga uurka ay ku jirto haweeneyda ee qabtana caabuqan loo yaqaano kalaamidiyaha haddaba haweeneyda uurka leh hadday isku aragto calaamadaha aynu soo xusnay oo dhami waa in ay si degdeg ah ay u bilowdaa daaweynta cudurkani baaritaan kadib sidoo kale waxaa lagu daaweyn karaa antibiotic ayaa la siin karaa fadlan muuqaalka la galay una share garay qaar kamid ah asxaabtaada insha Allah